saddexdii boqol igama soo daba dirin qofta gabadhan sidin ayada waani ka soo daba diray shan baan ka soo daba aniga iga baxday shan baan ka daba diray niyo xaqayga waa ka dhamaatay adigu wixii isla xisaabsada kumbu ii soo diray shan baan ku soo diray السلام عليكم صاحبada qiimaha badan ee ku xiran janalka nala farax meel kasto ay ku sugan tihiin ciid wanaagsan waxa lagu jiraa maalmihii farxadda badnaa ee munaasabada ciid fadriga waxa way maartay waxaan la joogtaa hodaniisa oo aad u taqaanaan hibaaq ku jileysay filankii samir baasadkeena saaxiibkay ustaad Xaybaro iyo aniga Yaxya Nuur Muumina waxaan rabnaa inaan damaashaadka iyo farxadda munaasabada ciid fadriga aan idila qaadano soo dhawaada hodan soo dhaw waa dhawahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo dalkoona nabada dadku degan insha Allah bismillaah kariim tiimkaagana waxaan leeyahay way salaamaya filankii ku jirtay oo tirishada qatarta ka ahayd ninka odaga xoolihiisa maxaa adiga lafkaagu horta aad baan islaamiya kaabalaadka ugu salaam filankii aad baan islaamiya saxaafada qiimaha badan ee ku xiran channelka nala farax meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak oo ku faraxsanahay inaan halkan ciid mubaarak ka soo dhaho meel kala duwan baa dunida kaga nooshiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaad farxad meel walba joogtaan ugu noolaataan ciidanidana bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo iyo caafimaad qab inuu ilaahay nagu gaarsiiyo walaalaheenii aan fursada u helin inala iidaan bishan qaarkood xanuusnaayeen qaarkoodna aanay waqti u saamaxin oo geeriyoodana ilaahay baynu u baryaynaa kuwa dhintay inuu naxariisto kuwa xanuunsanay inuu ilaahay caafiyo inagu farxaddeenu ka ciidnay fursadaas iyo qiimahaasna ilaahay baynu uga mahad celinaynaa alxamdulilah qof walba oo daawanaya oo iidan fursad helay inuu isugu caafimaad qabo dadkiisa iyo dalkiisa ku ciido ayaa aduu dal shay ku maqan yahay inuu ilaahay uga mahad celiyo oo yiraahdo alxamdulilah rabbil caalamiin waa maasantiin intii nala farax hay soo dhawaada adownahay hay qodan baa xarabayna hodan u leeyahay xoolihiisa cunay wadiga 300 Yusuf kaabalaadka ugu weyn kaabalaadar dan walba dankana wuxuu yiri bil khayray ana xaaladda kala tuuraya anigana wuxuu yiri de waxa doonaysaa iimaankii waa ballaadan soo tir iga soo daba dir buuluu kale soo daba dir aniga igu tiraada wax goodiyay hodanay markuu albaabka ka furtay oo ku daqiiqadan ku hadlaya hadde bal xaraaqin maxaan xanaaq way kaamirada inta joojisay caad dagaal de هذا ما بس لا جلينا انت لا جراك بدن انت لا سو بندق ما تقنو خالص انا بيسوك اي حديثي هل دقه استيرال خلاص ودع كلا كان سو دغ waqtiyada kugu dareed filikaas ka sheekay inna lillahi aniga horta waxa igu dareentay markaan suuqa marayo waxaan siradaa teamka bil khayr ma aragtay inta ku qabtaan Allah ya dhaweyd xamar weyn ee adana sheekay moolka agtiis laba meel waxay ka hibaaqay ka reemo fakata naftu lugaaga ku aamintaa maqli jiray orode dadka taageerina waxba ma aysan ugu xitaa laakiin dad taageerayna ku ah balga ya ma ay dhageyso dumar badan oo qoftan komitida baa jira moogta komitida aad akhridaa komitida kaligeed baa lagu jafaa halkaas ka liftay wardiiska qabato dumar badan oo masayraa jira oo macnaha isiri xaqiiqo weeye sheekadani moogtahay marka inay birtay la qoraan soo ma ina dhahday waliyaal film bay ahayd waa jilaynay laakiin ogow guryaha Soomaalida way ka dhacdaa arintan wallahi ka dhacdaa sheekadan oo kale ka dhacdaa aniga wadi ka dhacdaa horta filimkan waxa way riwaayado badan aan hor u daawaday laakiin ma taqaanaa dadka hadda filimkan juhdiga ku bixiyeen waa kamid ahaa hodan aad ugu mahad celinaa Yusuf Xaybaro oo fikirka filimkan keenay directorna ka ahna maartay waxa way sheekadan si u socoto meesha ku dhamaan doontaan horta waa arki doontaan waxba idin ka sheekeynaa laakiin sheekadan inteeda badan 95% waa wacyigelin arintuna waa wax dhaca weey ha oo inta badan way dhaca qaarkiisna dhibaato leeyahay laakiin wax ka hadda xun baan waay damaca qaarkii aniga iyo anu ragga mid sheeg wallahi raggan mid sheeg ana hibaaq daawul booriiso garbaashti hadda meesh fiicneedan ku helay mar bil khayr baa uu meeriday inta soo qarqac bil khayr iga furtay باس يقول لك كديد بايست بالخير أنا واجفت ويا بنت وفايدة استدي
ayaan akbar ilaah baan ku dhaartay si dadka isugu diro marka kumatiyada akhriyo inta badan dadka Soomaalidu waa dad waxay u badan yihiin markay arkaan waxyaalaha ay dhibsanayaan waa dad violent qaar baa waxay soo qoreen khalaas Yusuf inta tifta laga faa'iideysto yaxyi wasweeyi away ninka odaga kuwaari waxay leeyahay taqaana yaxyi bajaasha raacid markaan guriga sheekeynaya ba oo badan waxa leeyahay bilkhayr soo carar kala kor loogu sheekeynaya warba ku dhaafay laagti lacag baa loo diray نسكابا يوسف markii نسكابا بالخير نقولات من labadina isag fadhina صوت حاد وعرض نفط هورد ku نسكابا هذا يا أنا ثم ما أنت عالم معي والله عالم معي هدي ما حلا يقول نسكابا كبرت حتى ماشي دارو حرق يقفتني عسيتي تحت تايبين كهجري أجرن هجر تايبين كهجرين بمقلاي تايبين والله لكن تايبين ها بالكم ده ميكروفونك ميكروفون ها ميكروفون والله كنت بقول مفسر وحاس انجليش تاني كهلا ونيهو Soomaali been maxay English loo geeyay hodan ma aragtay jilisteedu waa top ما عالم waa wataa hodan waxaan ku iri horta filmaan badan waxaan rajaynayaa shortiyaha qolka door maanta iga qaysay caadi iga qaadan musaacid بالغير ka daran lacagta ma dirtay tiri بالغير way taagatahay lacagta ma dirtay niyo iyada waxa asbay wallahi jilitaan caadi inay boqolkii iga qaadan milyan wallahi Yusuf been bad moodta rag waxa jira horta ana dumar ma ogta rag waxa jira dumarkooda guryaha u joogan lacagta u qoodin laakiin kuwa kale laakiin naagta uu shukaansanaya isla daqiiqada haday $1 weydiiso u shu gacanta ugu gelin haduusan hayn xitaa raadinay haduusan hayn deyn ku raadinay ariga ana waxa wax suuragal waa wax dhaca ma gabadhii xaaskiisa guriga soo u baahan oo rabta haday doonto weydiisato leemahayo waxaan leeyahay hodan maxay filinka sida xaqiiqada ugu jilaysaa ilaa waxba meesha ku jira naqshad laakiin waxa dhacda ragga qaar naagaha shukaansanayaan marka hore ku soo jiita lacag marka guriga soo galaan de sida taas un arno adeer waxaan ceebeynaa arintaas waa qalataas ilaahay waxaan siiyay والله marka inta badan laakiin waa yar dameer xumo eg ninku marka loo eego dhanka diiniin ilaahay baa afar dumar oo baneeyay sax oo wax diinaha laga warama karama laakiin iyada lafteeda hadda shuruudaha lagu soo xiro waxa la yiraahdaa dad kari karto ma aha waa afarta waa iska jidaysiin iska jiida ma hade okay ninku gabar kale ha shukansado sax hadduu hanti haysto sax ha siiyo sax laakiin waxa aan reerkaygu ka dirgin inaan gabadh kaloon doonayo inay la noolaato xaasi noqoto sida gabadha ilmeey ugu dhasho inaan iyada kaligeed ku hurgufo tii gurigan joogtay ee processka tan hadda ku jirta ka soo gudubtayna aan waxba siin waayo wada mir xumo horta hal arin jirto Yusuf qofkaaga maartay adiga xaaskaaga waxaad ka dhigi kartaa boqorada dunida u sareysa waxaad ka dhigi kartaa doontin lacagta hoosteeda gelin kartaa waa sax been marka adiga oo awooda inaad heer sare gaarsiiso waay maxaa inaad dhulka dhigto wala qof oo xaaskaagii wala qofka xaaska wala way kala yihiin qof adiga ku wanaajinaya xaaskaaga ku wanaajinayso waa inaa wanaajisaa gabdhahan waxaan leenahay nimankiina haddii wanaajinayaan والله قبلها أنا كميده وعلول شرعسين بقولكي بس أنا أنا كودل كجيدي مايا قبلها والله يوسف والله ما ها استغفرني مدة نكون شيء قلا والله وعلول شرعسين سبب ما تقانا ما ورت ولا لك فيه مدة نكون شيء يا يوسف وحضرك يسا قبل نباهي كراعي سقوم وحبها يسنسيرو أبي قرسني ساعة إلهي بابا ما فرتوم وقدك إياه قبل داس مركو قرصدون نكاس قرقر حياة العقب بهليا وشقيسانيا شقوين كحدنا بهليا دون كي بيسقو توسيا waxaad arkaysaa shalay gabadhii baahida ku raacday haday doonto joodariga kaligiis la seexatay oo birito agta hoosteeda gelinayo isagoo taagan oo gaadho wato labisan inaan kala cado qurux badan u saarantay gaadhka ilaahay xaqamiya ma horta taas kuma sheega galnaba way taas waa dhaan jirtay waa xaalad way dhacdaa way jirtaa dadka sameeyo arintaas ka waan idin ku sheegaya dadkeenu waxa qiimeeyaan waxa dhaca laakiin waxa ka sii daba dhac ma qiimeeyaan been ninkaas gabadhaasi xilligii noloshooda ay bilowga ahayd faqiirnimada ku guursatay sax
waynu aragnay marka inta badan hablaha Soomaalidu nin bay jeclaadaan صح aan shilin haysan been ma markaas reerkoodu waxa ku bushkareeyaan ninkani waxa kuma tari karo waxa kuma siin karo waan rabaa isaga waa sidana waxba ma haysto haddana gabadhaas ninkaasi wuu cadiyay iyadoo leeyahay abtiga oo Mareykanka jooga lagu siinayaa beenada mar ka raacaysa in hebel aad ku siiriyahay baa lagu siinayaa mar rabto okay ninkaas raacaysa ninkii sidaa gabadhaas u ahayd saa ay hore u soo sheegteen waxa laga yaabaa inuu Britoola lacag helo shaqaysto dhaqaalihiisa kordho dadana marba gabadh qurux badan gaarigiis ku sito been ma way dhacday tan aan laga yaabay inaan xataa weligaan habeen cashageen ma fahanti laakiin waxba isaga u dambeeya waxaas uu sito iyo waxaas uu la wareegayo iyo waxaas uu wato iyo hadduu macal kuwa kala guursado hodana kala sugaysa هذا كلا سكت والله بين ما والله بالله تاسي بين ما ها قبلنا مسكينة دا ها قبلنا مسكينة دا والله عدوا تري ها هذا كلا سكت ها والله ما سكت ما لكن متكلم سكت wax laga yaabaa xaaskiisa weyn ee awlaad u dhashay ee ninkaas xumeeyay in ilaahay isaga dulkeeno waaba dulkeena yabe aakhirta ninkaas uu gaboobaya ama lacagta ka baaba'aysa siin bay wax noqonayaan wax laga yaabaa gabadhan weyn ilaa waa bahdi weyneed markii ilmo waaweyn dhasho ninkiina iska gaboobo ilmahani wax laga yaabaa inay fursad hooyadooda abuuraan shaqaystaan odaygu soo gaboobaya okay naagihii doo yaryaraantii ku waday ee islaanta yar wixii dhan kala haadadii ayadu macay la bad laga gelin wax lagu filmaya la dad laga gelin iyada iyo ilmaheedii oo macay soo badaya been ma garat dadka iskaaga jilaa wax la siiyo marka ragow gabdhaha la hagaaji raga inta badan raga nafsiga galee sida yaxyo kala noqda dheh ragow gabdhaha sida yaxyo kala noqda dheh inta igu daca silica ka daaya orantay de gabdhaha la silica la saddexdii boqol igama soo daba dirin qofta gabadhan sidon ayade waani ka soo daba diray shambaan ka soo daba aniga iga baxday shambaan ka daba diraniyo xaqayga waa ka dhamaatay adigu wixii isla xisaabsada kumbu ii soo diray shambaan ku soo diray ana wala dhaqaajiye kula لبسكي شوبينكي قاعد أرتاح نورا يا دي أروى العيد نلا فرح عادة ما سنتين جوليستا وقف فرح سمعنا إنه كان وقتي كوضة قادنا وذا فرحنا ما دام معلمي فرحة اللي وشرو ونتجمع على الناس ده ونحسنا سنة كوجو حدتين ولكن يحيى مؤمن صاحبة الجلال نوقف صوبين دونا إحنا نسوي سودو هذا صاحبة هورن اللي تشوفنا وكم هاتين اللي تشوفتان كودا فضلا مقال كل يقرأ وشارك رأي أصحابتها channelka subscribe saaro kambalelkana furasi muuqaal walba oo halkan soo galina oo ku soo gaaro gabdhaha Soomaaliyeed raga jafa naaga kala shukaansadana lacagta ka gurtay ka dhamee ka gurigaaga jooga jeebka kala dagaala ka reela isku daraysa waa farxada inta asan idin kula tali ani waa idin sheeg warkaay hoodan diid ilaahay nagu soo rogtay janalka moodi riwaayadda kaliye janalka kale ka jeebka shilin uu ku qaadan akoonkiisa inaad ka war haysaa iyo shaqadiisa iyo inta u soo dhaca hodanay ka dhin hodan waa igilibin oo waxa ay wada tago isku dire yareela ay duntoodii isku diris maaha ay hodan wanaagsan saaxiibayaal saasay noo balana subscribe channelka dhaha muuqaalka la gareeya si share gareeya la wadaaga asxaabtiina sidoo kale comment maaragtay qurux badan oo na dhiirigeliyana noo reema waka aad baa mahadsantihiin waa la idin sheeg bye bye